naxariista ilaahay waxaa ka mid ah baa la yidhi malaga khayrka qoraaya khayr markaad samayso ama khayr aad ku hadasho isla markaaba uu qoraa baa la yidhi laakiin malaga dembiga qoraaya markuu gaf kaa dhaco hadal yaroo maalayacniya kaa dhacay isha ayaa meel qalada kaaga dhacday dhagta ayaa wax yaroo qalada ayay maqashay gafafkaa yaryaree kaa dhaca markuu dembi kaa dhaco malaga dunuubta qora markuu idhahda ha qortid malagii khayrka qorayay baa kule ka joog ha qorin sababtu waa maxay bilow ilaahay u soo noqoy bilow astaqfirullah odhay bilow ka toobadkeen 6 saacadood baa loo kaadiyaa baa la yidhi 6 saacadood ayaa loo kaadiyaa qofka muuminka gefka uu ka dhacay bal inuu gefka ka soo noqdo ilaahay u soo noqdo waa cafow waa kariim ilaahay kariim waa kee waa deeq bixiye badane weeyaan kariim deeq bixiye badane saaka inteena halkaa fadhida caafimaad baan la soo kacnay lixaadkii ku dhammaystiran baad la soo kacday haddii nicmad kastoo ilaahay uu ina siiyo la odhan lahaa bal ka warrama lacag ka bixiya oo indhaha aragga lacag ka bixiya oo dhagaha lacag ka bixiya oo hadalka lacag ka bixiya oo socodka lacag ka bixiya oo gacantanaad isticmaalaysa lacag ka bixi oo hawada lacag ka bixi oo biyaha macaan lacag ka bixi moobeelka gacanta aad ku sidataan haddii rasiid lacagta hadday ka dhammaato usdaminayaayo maaragtaane kuu soo dhici maayo kuuna soo dhici maayo hadalla kaa bixi maayo bal ka warrama haddii la odhan lahaa indhahaaga lacag haddaad ku shuban weydo indhahaaga way kaa damayaan oo hadalku waa iska kaa taagayaa oo maqalku uu istaagayaa oo socodku uu istaagayaa halkee bini aadamku lacag ay ka keeni lahay bal ka warrama ilaahay raxmaddiisaa ku soconaa waa kariim waagaa inoo baryey ilaahay amarkiisuu inooga baryay nebigeennu waa kii lahaa calayhi salaatu wassalaam man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuta yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qofka waagu u baryey buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam isagiiyo reerkiisii iyo magaaladiisii iyo dadkiisii oo nabad qaba iyo jidhkiisii oo caafimaad qaba oo meelna ay xanuunaynin iyo quutalyow maalinkaa wuxuu cunayeyna haysta buu nebigu yidhi saddexdaa nicmadood qofka ku waabariista buu nebigu yidhi nicmaddii adduunyada taalloo dhan qofka waa la siiyo waxba kama hadhin amni buu ku waabariistay caafimaad buu la waabariistay arsaaqad badan uu bila cunaya maahee quutalyoom wixii maanta adiga ubadkaagu aad cuni lahaydeen ilaa cashada saddexdaa nicmadood buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam qofka waagu ugu baryey nicmaddii adduunyada taallay oo dhan qofka waa la siiyey buu rasuulku yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah ayuha alikhwa dhegaysta walaalayaal waxa aan nicmada haysanno ayaa ina siiyey war bal sheega ayaa ina siiyey allah baa ina siiyey allah ilaahay maanta dadku laakiin umay mahadnaqina ogaada afcaasha inaga soo fulaysa iyo hadallada inaga soo baxaya afkeenna ka soo baxaya iyo dhaqanka dhallinyaradeenna ka muuqda shaakiriin sidii shaakiriinta uma soconno nicmadda ilaahay uu kugu nicmeeyey shukrigeygii sidii la rabay uma soconne ogow nin saalixa baa la yidhi ayaa arkay nin labadaa gacmood ku go'an yihiin oo labadaa lugoodna go'an oo indhalo oo indhahana waxba ka arkaynin oo jidhkiisana barase ay ku dhacday haddana ku ducaysanaya oo leh alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaa bihi kaiiran min annaas ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu leeyahay balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday ilaaha aniga iga ilaaliyey baa mahadla buu ninkaasi leeyahay bal si fiican u dhegaysta walaalayaal tawajuhu ninkaasi baa layidhi labadaa gacmoodna uu go'an yahay labada lugoodna uu go'an yahay indhana malo araggiisu ma shaqaynayo barasna jidhkiisu way ku dhacdo uu cad yahay waxa uu ninkaasi uu leeyahay ilaaha waxaa ku mahadiyaa balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday aniga iga ilaaliyey allahaasaa mahadla buu leeyahay markaa ninkii saalix ahaabaa ku yidhi warniyow adiga balaayada kaa maqan maaragtaanay ee dadka kale ku dhacday ee adiga kaa maqaneed ilaahay uga mahadnaqaysaa waa balaayadee waa adiga labadii gacmood way kaa go'an yihiin labadii lugoodna way kaa go'an yihiin labadii maaragtaanay indhoodna waa kanoo malihid markaasuu yidhi waxaa anaa nii sheegi balaayada dadka kale ku dhacday ee aniga iga ilaaliyey baan ilaahay nii sheegi dadka kale maanta quluub way leeyihiin laakiin qalbigooga ilaahay marna kuma hayaan oo qalbigooga cabsida ilaahay ma gelin oo ilaahay ma xasuustaan oo qalbiga macrifada ilaahay kuma haystaan carabna way leeyihiin carabkana ilaahay kuma xusaan oo kuma dikriyaan ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran ilaahay aniga wuxuu igu deeqay qalbi shaakira baa ilaahay siiyey qalbi mahadnaqaaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shukrinaya
يا وحوسي عرب ذاكرة إلهي سي عرب إلهي أكوحسه يا معشر الشباب دل يرو مجمعا دل يربو بدنها وأوجده لكن نعمت إلهي نسيه ما أنت إلهي مكوا دعنا بكلتها مقلك إلهي مكوا دعدي أرق إلهي مكوا دعدي عافماتك إلهي مكوا دعدي دل يرنمداد إلهي مكوا دعدي اغتنم خمسا قبل خمس بنبي قول عليه الصلاة والسلام شن نعمدود انت قبتو شن كلا ايسكو دحين بنبي قول يا كغنيميسو wax ka qabso waa shantee intaad caafimaadka hayso ka faa'iideyso caafimaadka intaanad bukoonin dhalinyarnimada ka faa'iideyso intaanad gaboobin nolosha ka faa'iideyso inta aanad dhimanin ghinada ka faa'iideyso intaanad faqiir noqonin firaaqa ka faa'iideyso intaanad noqonin mashquul shanta nicmadood intaad haysatid dhalinyarnimadu waa nicmad ghinadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad noloshu waa nicmad firaaqa gacan banaanidu waa nicmad shanta nicmadood ilaahay taacadiisa uga faa'iideyso maalin baad nicmadaasi ay gacantaada ka bixiyo ogow caafimaadka maanta aad haysid maalin buu yaraani doonaa yaraan oo la odhan doonaa keli baa xanuunaysa macaan buu yeeshay dhiikar buu yeeshay dhag baa xanuunaysa gaws baa ka xanuunaya maalin buu caafimaadku isdhibi doonaayo ogow dhallinyarnimada xooggala maanta eed meel walba u tallaabsanaysana maalin bay isdhimi doontaayo ogow ood noqon doontaa 80 jir oo maqalka isdhimi oo aragga isdhimi ood odhan doontaa kan kumuhaabaad odhan doontaa hadalka kor igu qaad baad odhan doontaa kuma maqlaye markaad tallaabsanaysana tallaabada aayar baad u qaadi doontaa waa goorma waa markuu qofku daadiisu ay wanaato jilco weeyaan haddaad nooshahay maanta faraaqan nolosha ka faa'iideyso waayo maanta arlada dusheedaad socotaa laakiin barritooda kulligeen waxaan geli doonaa arlada dhexdeeda alam najcal alarda kifaata axyaa'an wa amwaata baa ilaahay miyaanan bini aadanka dhulka ku fullaysiin keena dhintayna dhulkaa unbuu ku dhex jiraayo dhulkaa haya keena maaragtaane noolna waa kaa dhulka dul socda marka dhulka markaad socoto markaa sideed u socon sideed socodka xor ma u tahay may ilaahay baa yidhi walaa tamshi fi lardi maraxa arlada dusheeda marka aad socoto in aadano kibir iyo qooq arlada dusheeda ha u dulmarin baa ilaahay ku leeyahay innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula baa ilaahay yidhi haddaad arlada korkeega markaad socoto kibir iyo maaragtaane khuyalaa aad u marto ilaahay waxa uu ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid kibirka iyo xaragada arlada dusheeda aad la dulmaraysid dhulkana ku dilaacin maysid buurahana dharar ma gaadhaysid baa ilaahay yidhi bani aadam baa tahay xaariya kaadila oo daciifa oo miskiina oo faqiira oo mar walba baahan baa tahee ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu dhulka aayar u dul soco aayar oo muuminiinta waxaa lagu ammaanay aladiina yamshuuna cala alardi hawna arlada korkeyga markay socdaan baa ilaahay yidhi aayar bay u socdaan aayar ma ordaan ma degdegaan isma qalqalluuciyaan cid kale kuma daydaan aayar bay u socdaan aayar waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama jaahiliinta meelaha fadhida markay la hadlaanna waxay ku yiraahdaan qaaluu salaama nabad baad naga heshaan annaka nabad baad naga heshaan meel xun fadhiisan maayaan si xun u soconi maayaan wax xun maqli maayaan walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasar waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ilaahay baa sheegoo yidhi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay maqalka iyo aragga iyo hadalka iyo qalbiga intaasi waa nicmad weeyaan nicmaddaa ilaahay ku siiyey meel xun nicmaddaa ha dhigin maqalkaaga meel xun ha dhigin araggaaga meel xun ha ku eegin qalbigaaga iyo caqligaaga wax xun ha kaga fikirin socodkaaga meel xun ha marin ilaahay baa kula caza wajalla nicamtaasoo dhan hee su'aal baa ka dambaysa su'aal laba nicmadood buu nebigu sheegay maalinka qiyaamaha dadka ugu horraysa la weydiinaya waa laba nicmadood buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam biyaha qabow ee macaaneed cabbaysid iyo jidhkaaga suuradda quruxda badan le ilaahay kugu deeqay waa labada nicmadood ugu horraysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee qofka bini aadamka qiyaamaha la weydiin doona buu rasuulku yidhi jidhku waa nicmad ilaahay ku siiye u fiirsa xayawaanka bal dameeraha eeg oo ayga eeg oo dhurwaaga eeg oo dibiga eeg oo makhluuqaa ilaahay abuuray eeg kulligood way fooraraan adigana bini aadana kor baa ilaahay ku taago qurux buu ku siiye qurux ilaahay caza wajalla markaa nicmaddaa inaan ku caasin lacagta ilaahay dhaqaalaha ilaahay ku soo gelinaayo meel xun ha ku bixino ogow
haddaad meel xun aad ku bixisaa maalinka qiyaamaha su'aal baa ka dambaysa cali ibn abi taalib baa lagu yidhi adduunyada bal noo sifee caliyow noo sifee markaasuu yidhi adduunyada maxaa niigu sifeeyaa adduunyadu awalkeegu waa tacab aakhirkeeduna waa dhammaad xalaasheedu waa xisaab xaaraanteedu waa ciqaab ninka adduunka dusheeda hanti ilaahay ku siiyey waa la fidneeyey ninka adduunka dhexdeeda ku faqiirkaasina waa ku murugsan yahay buu adduunka dhexdeeda adduunka raaxa ma taalle ogow nololna ma taallo hadday raaxa taalla raaxa aakhiraday taallaa hadday adduunyada raaxa ay taallana dadka ilaahay ku xidhan ee muuminiinta ayaa qalbigooda ilaahay ku raaxo geliyey sidaa darteed walaalayaal diinta islaamka ilaahayna siiyey diinteenna islaamka waa inaan ka shaqaynaa waa inaan barannaa waa inaan iyada isku tixgelinnaa waa inaan isku jeclaannaa muslimka kale waa walaalkii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuusan dulmin yuusan cadowgiisa gacanta u gelin inuu xantana lama ogolo inuu ceebtiisa raacraacana lama ogolo walaalkaaga muslimkaa haddaad ceebtiisa aad raacraacdo adaa ku dhib qabay ogow marka ilaahay caza wajalla khayrka allahayna waafajiyo amiin dhahada dee raalli naga ahaada annaguna hadh baan taagannahay ininkuna cadceed baa taagantihiin laakiin kaad wax ka doonaysaan waa kuma war bal si fiican gacanta u taaga ayaan ajar ka doonaynaa ilaahay baad ajar ka doonaysaa halkaa cadceedda ilaahay dartii maadaamaad u joogtaan ilaahay baa ajar inaga siinay ininkan waani soo ziyaaranay waani soo buuqannay waa nasaa'ix caama weeyaan dadkoo dhan baan la dhex soconnaa dadkoo dhan baa la baraarujinaya oo la leeyahay ilaahay u soo noqda watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun haweenkaa la wacdinaya dhallinyaradaa la wacdinaya maalqabeennadaa la baraarujinaya oo la leeyahay yaa muslim zamanka aad joogta waa inaad garataa waa zamankee waa zaman alfitan weeyaan waa zaman alfasaad baan joognaa meel kale ku badbaadi maayaan muslimiintu ilaa diintooday u soo noqdaan mooyaane ilaahay loo soo noqdo unbaan ku badbaadaynaa dad kale oo akhyaara oo gaale iyo nasaare iyo yahuud lagu dabadaydo laguma liibaano horumarna laguma gaadho horumarka waxaa lagu gaadhaa waa diinteenna islaamka da inaan diinteenna ka shaqaynoon baranno oo ku camal falla sow diyaar ma nihin insha allah